lama sheegin laakiin aan si kale waxaan u maqlay inay section 3 degan yihiin laakiin ma hubi ama isli meelaha adiga kulli meel ka dheer ma aha okay marka maamada waxa la dhakhtarka ka soo aaday dan wal gabdhaha waxa jirta gabar iyada dhashay iyo mid kale to kaazin yihiin ilma adeermiya ilma aqtimiya ilma edamiya ma garanayo dan marka maamadii way soo wacayeen la gabdhaha markii dambe ilaa ay gaartay abaara 5 saac oo waqti dambe ay noqotay markii dambe gabdhii waxay go'aansadeen gabdhaha mid kale waxay jiraan sanadkooda midna waxay jirtaa 12 sano jir aad u yarta midna 22 sano jir ay jirtaa halahay dan gabdhii waxay sameeyeen way soo baxeen la yiri siisi kaamirada guriga markii uu war dambeeyay ayuu gaari sii raacay ayaa dadkaas ugu war dambeysay laakiin markii dambe waxay maqleen ama newska ama social media ka arkeen in meedad la soo dhigay Parkland iyo Park Road miya iyo Gonga miya maqan kadibna meedadkii markii la arkay si xul gabdhihii ay ahaayeen maamada wali waxa la dhigay magaalada meel ka baxsan Machakos la dhaxo ay meedkeeda la dhigaa la dhahay wali maamada gadaalaha meedkeeda laga helay okay hadaba horta la shaki fi waxa shaki ku jirin waxa waaye in dhacdada dadka dhacdada xun oo saana geystay inay yihiin hal group sababtaas u leeyahay horta dilku isku si ayuu ahaay hadii la yiraahdo jirdilka jirkooda la googooy xubnaha qaar maqnaaya liiri waa la kubsadaa liiri adi waxyaabo badan saddex meelood kala dheer ha dhigaan laakiin dadka oo falkaas geysta shaki kuma jiro inay hal dad yihiin okay hadaba ani marka qiyaas ahaanteeda marka fikiray hal meel ay cilad ka iman kartaa maamada Allah u naxariistay dhankeeda waxa laga yaabaa maadaama maamo ahayd inay gaariga ay soo raacday 90% gaarigaas inuu ayada dhibaato u geystay sababtaas u leeyahay waxa waaye BBS Mall waa meel Soomaaliyeed meel oo qof asagu saa u soo taagan laga afduuba karo horta ma ahan kor hal lahaado wuxuu leeyahay share meel yiraahdo kaliya tahay lacalla kaliya mar walba raacin share ayuu leeyahay familkaaga ama asxaabtaada waxa tiraahdaa gaariga noocaas targadaas leh ayaan raacay dheh weligaan kaliya ha soconin waayo qof iska socda sumad aan lahayn hadii aad raacdid wax kasta ku dhici kara iska ilaali dadka raacaysid qof walba oo adiga aad raacaysid ma ahan Soomaali ha ahaado ajnabi ha ahaado in uu wanaagsan tusaale ahaan Soomaali ahaan yaa lagu wanjalin oo lagu dhihin qofkan waa Soomaali waa aamini kara hadii lagu yiraahdo aan israacno meel aad qof hadan aqoon kaliya aad tahay cunto ama biyo lagu siiyo iska ilaali waayo biyo wax lagu diraya waa suuxaysa xaafada lagu geynaya waa lagu kufsanaya waa lagu dilaya reerkaaga iyo dadkaaga margo u keenaysa marka waxa kale loo baahan yahay gabdhaha asxaab inay raadsadaan xaafadahooda isli ama banga bismillaah salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh qiimiga badan qaayaha badan waa mar kaliya muuqaal cusub bartan adiga dhahanaysaan waa barteeni waa bartan kulmi jirnay والله كامل يبرو أدي أدنو مهسنتين كسو دوادا من اللي نكتشحلي هاي ولا لها قلبك سي شير قراي برنامج أصحابة الوداقة channel كاس سبسكرايب نوصارة صلي النبي صوبنا صلى الله عليه وسلم هاي المؤمنين وصلا هذا إذا انتهي سويت كذا يعني إذا مشغول وياي إن واحد جفتي مالين كحر قبل الدلي الصوماليات عن كهالي قارهان وحن آذ وهالي قبر أمون ليرادو oo lagu dilay afgooye iyo gabar kale oo markaa meedkeeda la helay oo la soo dhigay oo gabar Soomaaliyeed Allah u naxariisto labadooda Nairobi waxay noqotay meel bahala galeen ah oo aad khatar u ah aad halis u ah khatar u ah waxa wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan hooyo Soomaaliyeed gabar da'deeda lagu qiyaasay 35 sano ilaa 40 inta u dhaxaysa waa dumarku marka ay ugu gedaha wanaagsan yihiin gabadhaas waa gabar ilma dhashay gabar markaan leeyahay kama wado gabar yar waa maamo ilma leh bay ahayd gabadha waa la ka qaatay taxi baa lagu qaatay sida la cadeeyay taxigii markii lagu qaatay kadib iyadii waa la soo kufsaday waana la dilay dhibaata loo geystay kadib baa waxa lagu yiri baa la yiri labadii gabdhood
sida uu sheegay ninka waashmaanka ka ahaa guriga siduu sheegay waxa la yiri waa la soo wacay waxa la yiri hooyadiin baa xanuunsan labada gabdhood mid yadaa dhashay midna walaasheedaa dhashay oo habar yar bay u ahay laakiin markii hore waxa la yiri hooyo iyo laba gabdhood ay dhashay laakiin labada gabdhood mid bay dhashay midda kale dhib la'aan bay dhashay waxay u ahayd habar yar labadii gabdhood dabaqa orod bay kaga soo degeen ninkii waashmaanka ah waxa la yiri wuxuu isku dayay inuu cesho ajal lama celin karo gabadhii weynayd labada dabaq bay gaariga tiri markiiba qofkaani wuxuu ku yiri hooyada oo xanuunsan baa halkan taalan ku geynaya sida la sheegay kadibna taasi markay gashay tii yarayd oo kacaysa kamna sidee kamna laadinaysa bay toos waxay u gashay iyaduna dalaq waxay u tiri gurigii gaarigii dalaq iyadoo ordaysa kadib gabdhihii tii yarayd markay sii gelaysay qaylo iyo waxay dareentayba almuhim waxay damacday inay ka soo noqoto xoog baase lagu geliyey xoog baa lagu geliyey allah u naxariisto saddexdaa gabdhood waa dhinteen waxaa maanta meesha yaalla gabdhaha reer Nairobi walaalayaal oo is jira qaaliladan baa afka furtay oo ka hadlaysa dad badan oo Soomaaliya ka hadlaya waxa la rabaa gabdhuhu waa baylah marka ay yiraahdaan Soomaalidu oran jireen haweenku waa hilib bisil bimacnaa waxa laga wadaa waa hilib bisil oo meel iska yaal oo la iska cunayo dee ma laga wado laakiin waxa laga wadaa mahmaahda waa gaal dil gartiisana si oo kale gaal dil gartiisana si oo kale weeye oo dadka qaar is yiraahdaan gaalkii waaba dishaysa gartiisa u siinaysaa macnaha ulajeedku saas ma aha mahmaahduna nooca ma aha laakiin dumarku haweenku waa hilib bisil marka lagu leeyahay hilibka bisil halka markuu yaal cid kasta u hunguriyoota bimacnaa ulajeedka laga wadaa haweenku waa hilib bisil oo halkaas iska yaalaan oo cunay u baahan yihiin maaha ee waxa weeye fahamku waa loo hunguriyoonayaa cid walba damcaysa doqon geesi fariid doqon xayawaan kulli waxa oo dhan waxay u hunguriyoonayaan inay ma garanaysaa ay wadamcayaan Allah sahlo marka Allah sahlo gabdhow is ilaaliya عليكم ورحمة الله وبركاته والله ولا شكوي ماذي هذا ريني رومناهاي إلا حلي إلا شل إلا ما تعب عبسيا نودار هرت إلهي أنا أمان سدو إن هل كان وحوق تعسين يا إهلكي إقرابت دي إيكي رياضين سدح دي دمر إيش الله نيروبي ميدت كذا للصالي جاي أمد الصوماليات جارهان أمد كنا نيروبي إن سلام كذب النيوز كا وحلاقي عبادك قار إن الشيء كذا ولي إسفان سنين أما إسن مقلين هرت النيوز كا وحن كم قلي أياربا إن دي شيء يو وحيابا كلته أني أعربا إن دي شيء فيديو كان وحو مهم هي هاي قفل البصومالي أو دك المجال كينيا أما قفها تقاني كينيا دكنا دوتشر وشر كراي because وحوا very مهم واي عبسين سو وجه هذا واي إلهي أنا أمان سدو أنا قدل كان وحنا كنا قحوتي وحنا كنا ضد ومارتين بتقولي صادونني هذا نبتقولي كوين إنه والله واحد إلهي وهرت دل كان هنوقت ليجو دل وناكسن إن مدكو بعد هرتو حليلي إن ماما يلو كبرت أيا لتلي ماما ذا دتك خرب حملة لابد كبرت إذا هذا الشيء ما دلين مد كمل أي الشيء إن مركو واحد عدي وحليلي ماما ذا سيدا نيسك أو قبر كهذا ليس family كاس إن قبر رير كاس قبلي دينتي رير كودا كهلايان قبر كمدا وحلا وري سنة وحدة هذا ماما ذا وحسوا أدي دكتور أو سكين ك أما مقار كأ وكيا لبي باسمه أي سؤال الله هاي waxaan u maleynayaa meeshay degan yihiin lama sheegin laakiin aan si kale waxaan u maqlay inay section 3 degan yihiin laakiin ma hubi ama isli meelaha adiga kulli meel ka dheer ma aha okay marka maamada waxa la yiri dhakhtarka ka soo aaday dan waxa wal gabdhaha waxa jirta gabar iyada dhashay iyo mid kale to kaazin yihiin ilma adeermiya ilma abtimiya ilma idamiya ma garanayo dan marka maamadii way soo wacayeen la gabdhaha markii dambe ilaa ay gaarto abaara 5 saac oo waqti dambe ay noqotay markii dambe gabdhii waxay go'aansadeen gabdhaha mid kale waxay jiraan sanadkooda midna waxay jirtaa 12 sano jir aad u yarta midna 22 sano jir ay jirtaa hal lahay dan gabdhii waxay sameeyeen
way soo baxeen la yiri siisi kaamirada guriga markii uu wardambeeyay ayagoo gaari sii raacaya ayaa dadkaas ugu wardambeysay laakiin markii dambe waxay maqleen ama newska ama social media ka arkeen in meedad la soo dhigay Parkland iyo Park Road iyo Gonga maqan kadibna meedadkii markii la arkay si xul gabdhihii ayay ahaayeen maamada weli waxaa la dhigay magaalada meel ka baxsan Machakos la dhaxo ayay meedkeeda la dhigaa la dhahay weli maamada gadaalaha meedkeeda laga helay okay hadaba horta la shaki fi waxa shaki ku jirin waxa waaye in dhacdada dadka dhacdada xun oo saana geystay inay yihiin hal group sababtaas u leeyahay horta dilku isku si ayuu u ahaay hadii la yiraahdo jirdilka jirkooda la googooy xubnaha qaara maqnaaya la yiri waa la kubsadaa la yiri adi waxyaabo badan saddex meelood kala dheer ha dhigaan laakiin dadka oo falkaas geysta shaki kuma jiro inay hal dad yihiin okay hadaba ani marka qiyaas ahaanteeda marka fikiray hal meel ay cilad ka iman kartaa maamada Allah u naxariistay dhankeeda waxa laga yaabaa maadaama maamo ahayd inay gaariga ay soo raacday 90% gaarigaas inuu ayada dhibaato u geystay sababtaas u leeyahay waxa waaye BBS Mall waa meel Soomaaliyeed meel oo qof asagu saa u soo taagan laga afduuba karo horta ma aha laakiin waxa laga yaabaa 60% gaari banaanka taagnaa oo taxi ah in iska raacday 40% waxa laga yaabaa in gaari oo Bolt ama online ka dalbatay in ay raacday sababta ay leeyahay 60% sababta oo leeyahay gaari caadi ah raacday oo taxi banaanka iska taagnaa oo door tuug ahay sababta wax oo qofkaas oo information ah laga hay karo ma laha laakiin hadii uu qofkan taxiilaha oo Boltiga uu yahay badana information kooda waa la hayaa inkastoo mararka qaar ay dhici karto gaariga dalbanaysa gaariga number plate kiisa iyo asaga isma laha ma fahanteen wuxuu ka soo wici karaa oo kaleeto inuu ka soo waco kale sometimes app ka dhaxdiis inuu ka soo waco taasna waa dhici kartaa sababta marka labadaas taxi midkood doonaba ha ahaade amaamada inuu qaaday ayuu dhumiyay oo kas iimaaga u dhumiyay wadadii ay garanaysa ahaynoo marsiiyay waa sida ila tahay sababtaas u leeyahay gabdhaha waxa la yiri maamadu waa soo socdaa dhiisay ilaa markii dambe gabdhii markay soo baxeen waa laga yaabaa in ay maamadii isla hadleen ay dhahdo waa dhunay kadibna ninka taksiga oo u tilmaamay maybe meesha ay joogaan kadibna gabdhihii taksiga meeshii markay uga degteen in ay taksiga kale raaceen kadibna oo ama meeshii ay markaas munaasabka ahayd oo loo baahnaa la geeyay oo dadka ninkaas ugu diyaarsanaa sababta waxaan aaminsanahay qof ma jiro raacayo taxi gaari niman kala sii saareen ma jiro maamada iyo ninkaas darwalka kaligood inay israaceen laakiin meel oo dad ugu diyaarsanaayeen inuu geeyay ma fahanteen ilaa hadda xogta Kenya ma jirto dadka falka geysta qof soo qabatay ama yaani waliba ku raad jiraan lama helin oo ma dhigi kari laakiin aniga sida aaminsanahay oo yaani maskaxdeyda markaa ka fikiray maamada yaa dhibaatada u geysan karo gabdhaha gaariga soo qaaday oo maamada ku soo raadiyay gaarigaas wuxuu eegyaa inuu waxba ogeyn sababtaas maxaan u dhahayaa ma wada waafaqi karaan maamada gaariga soo qaaday inuu gaarinta soo diro waqtiga nasiibkaas oo meesha ku helo ma dhici karto gabdho waxa laga yaabaa inay gaari online ka dalbadeen inay gaari caadi iska raaceen waa laga yaabaa laakiin muhiimadda ani 90% u siiyay inuu ninka darawalka ahay oo maamada waday oo dhahay waa dhunay oo maamada wada qaldan ka bixiyay oo ayadana oo gabdhihii markay soo raadiyeen asaga oo hagay oo yiri meeshaas joognaa markay meesha yimaadeen gabdhihii sidii lagu qabsaday ma fahanteen waa sidaas dhigi karo taas marka aan ka gudubna ilaahay ha naxariisto siday noqotona waxaan rajaynaynaa in la soo saaro oo waa lagu raad jiraa okay mid kala raba pointiga kala raba inaan ka hadlo hadda ka hor qisadeen dhacdadan oo kale maray dhici jirtay ayaan dhexdaas soo sas u dheereen laakiin ma ahayn wax oo la afduubtay naagaha oo jirkooda ka ganacsado aan nimanka Nigerian waxay ku sameeyeen jireen dhowr mar sameeyeen in ay dileen ay jarjareen ay kadibna qashinka ku rideen markay hooshooda ay ka bagteen meesha lacagta ka sii lahaayeen naagay bixilaayeen way jarjareen ilaa Kenya ay soo rogtay hoteelada in uu qofka haduu qof kale soo booqanayo in laga dhigo waxyaabaha detailskiisa sharcigiisa meeshu degan yahay lambarkiisa waxaas si loo aqoonsado qofkii uu u tagay iyo qofkii uu ka maxaa la raaa meesha tagay ma fahanteen oo mudnuucaas la saaray xitaa guryaha faaninjarada la saaray Nigeriankan waa dadka ugu halista badan ee wadankan cabsi waa dabaqay dadka tuurayaan naaga dhilooyinka way soo wadanayaan waxa waaye lacag ay haystaan then markay soo wataan
saas ayaga u jajaraayeen ayaan dhexdaas ma fahanteen dhowr dhacday laakiin tan ma ahayn tan waa mowduuc kaleeto midda kaleeto waxaa rabaa inaan ka hadlo anaga Soomaaliyaana xil xun la soconaa xil xun ama socon ma xumee marka qaar waxay ka imaadaan isliye ka imaadaan waxay imaadayaan Kilmaani iyo Westland Parkland waa meelaha badan ay soo aadaan dhalinyaradeena haddaba dhalinyaro hadda kadib inaan xarjinaa group isku soo raacdeen waa mid koowaad mid labaad taksiyaashiin Soomaalida iska raac inkastoo taksiyaasha Soomaalida ayagana waxay ku xun yihiin lacagtii inta la yihiin lacagtii waxay ka dhigayaan qaali that's why dadka u qaadanayaan polity marka walaalayaal wiilasha Soomaalida taksiyaashan adikana lacagta dadka ka raqiisiya taksigaas waxa laga yaabaa in meel oo 300 ama 200 ku aadaysa ku dhaayaan kuna ku aadaysa ma fahanteen gabdho habeenkii ha soo bixinina ma dhacdo inay soo baxdo group wiilal iyo gabdho isku jiro soo qaata haddii dhacdo gaariga kaliga inaad taxify soo raacdi habeen Soomaalida adduunka shirka wax laga siiyaa fahmo gaari taxi oo shir laga koray caalamkii England ku arkay gadaala la fadhiistaa marka taxi soo raacdi gadaala laga fadhiistaa special kursiga asaga ku aadana la fadhiistaa sababtaas isku dhaay in case haduu intuu looga ka oo jailo gaari kaaga xirto uu ka loo gareysto uu kula fakado ceejile dhab ku sii baawurka idin la gadoobo labadiin inta kaliga lagu gogoylaa ama lagu kufsalaha ma fahanti because asaga uu istaajinaa naftiisa marab inuu dilmo qorsagaaro leh kula qabale kursiga nin oo qorsagaaro oo inta lagu haayo xoog ma ahan taas muqt macnaha baawur ma sii wadi kar muqt waa inuu stop gareeyaa uu ku qasban yahay ma fahanti kaligiisna waxa waaye markaas wax ma tiri karo is ilaali